kani waa shakhsiga ugu da'da weyn dunida marka laga hadlo dhinaca labka. magaciisu waa Emilio Flores Marcos. waxaa si rasmi ah Guinness World Record ay u xaqiijisay inuu yahay qofka adduunka ugu da'da weyn. da'diisuna waxay tahay 112 sano iyo 330 maalmood, iyadoona la diiwaan geliyay oo rikoorkaasi lagu daray 4 maalmood ka hor ninkani. waxa uu dhashay Agost 8, 1908. waa wiilka labaad ee ugu weyn 11 carruur oo ay dhaleen Alberto Flores iyo Margarita Marcos. laga soo bilaabay yaraantiisii, Emilio waxa aabihiis uu ka caawin jiray beer sonkor ay lahaayeen. wuxuu inta badan mas'uul ka ahaa waraabinta beerta, maadaama isagu uu ahaa carruurtooda kan ugu weyn. waxaan ahaa kan ugu da'da weyn carruurta, sidaas darteed wax walba ayaan sameeyey. waan dadaalay, waan daryeelay walaalahayga, wax walba ayaan u sameeyey, ayuu Emilio ka sheegay warbaahinta. waxaa loo diiwaan geliyay inuu yahay qofka ugu da'da weyn dunida marka laga hadlo dhinaca labka, maadaama Guinness World Record uu ku qaatay in da'diisu ay gaartay 112 sano iyo 326 maalmood 4 maalin ka hor. haddase da'diisu waxay noqonaysaa 112 sano iyo 330 maalmood. si kastaba dunida waxaa loo tartamayaa oo loolan adag loogu jiraa sidii qof walba taariikhda dhinac uga soo geli lahaa. ninkanise da'weynidiisa iyo cimri dheerida ee baweyne uu ku manaystay ayuu mucjisooyinka dunida baal dahabi ah kaga galay.